litmus-tii, tana waa tii buluug ahayd, tana waa tii casiga ahayd, tii casiga weeye. macalinka chemistry wuxuu idin dhigaa markuu idin dhigaya propertieska acidiska wuxuu idin sheegaa inay acidadu litmus-ta buluugga u bedelaan casaan waa tan markaa. marka laba arday waxaa la doonaya ogaato inay laba litmus jiraan, mid cas iyo mid buluug ah. marka saasoo kale propertieska base-ka waxaa ka mid ah waxay u bedelaan acidada casaanka ah buluug way u bedelaan. alkalis, tannis, red litmus into blue way bedelaan. alkaliska ama base waxay u bedelaan litmus cas waxay u bedelaan marka waxay blue ay u bedelaan. marka waa ina wax kale barayna waxa kamid ah waa propertieski acidada iyo base ayaan barayna. kaasi waa mid kamid ah indicatoradii kana waa phenolphalein weeye. waa properties kale ay leeyihiin acidadu iyo base iyo ay leeyihiin marka maxay base soo kale phenolphalein waxay noqotaa pink bay noqotaa pink ay noqotaa acid colorless bay noqotaa. waxa kale oo indicator isticmaalna halka waa kino yaala waa methyl orange ay isticmaalna. methyl orange iyaduna propertieska acidada marka ay eegno waxa ay sameeyaan methyl orange waxa ka dhigaan red bay ka dhigaan base kana waxay noqotaa yellow ay noqotaa. halkan waxay loo yeelan markaa acidadii hydrochloric acid, sodium hydroxide kii aynu walaaqanay laakiin ka waa solid. halkan waa biyo distillate loo yeelay. waxaynu ka bilaabaynaa marka hore litmus-ta. bal ila aaga marka hore litmus-ta waa aan gelinayaa ila aaga. tan waxa weeyaan waa litmus-tii casayd weeyaan, waa litmus-tii casayd weeyaan. marka waxa aan gelinayaa waa arkaysaa waxa ay noqotay blue ayay noqotay. litmus-tii casay waxay isu bedeshay blue ayay isu bedeshay. okay haddii aan geliyo litmus-ta cas kan dhexe kan marka ay blue isu bedeshay waxay markaa ay sheegaysaa in uu yahay markaa base yahay. okay imika kan ayaan geliyey ma waa ku dhexdeeda marka waad arkaysaa inaanay isbedelin, waa no change weeye. marka waa neutral weeye. marka waxa weeyaan waa biyo weeye, waa biyo weeyaan. kan kale ayaan gelinayaa litmus-ta waxaan gelinayaa ta buluugga baan isticmaalayaa. litmus-taasi buluugga ayaan isticmaalayaa. kan kale waa eegaysaan sida ay noqoto. waan arkaynaa inay casaatay baan arkaynaa. marka waxaynu ogaanay iminka in ay litmus-ta ay base kana noqoto blue bay noqotaa. waxay u bedelaan basesku waxay u bedelaan litmus-ta waxay u bedelaan blue. waa ka macalinku markuu idin dhigayo propertieska base-ka waxaa ka mid ah inay litmus-ta u bedelaan markaa maxay blue. litmus-ta bay bedelaan, cas bay bedelaan. halkan ismay bedelin baan leeyahay markaa ismay bedelin neutralka ismay bedelin. kana waxa weeyaan waa acd way noqotay waxay noqotay casaan weeye. waa halkan markaa inoogu horgalay aynu ku qornay litmus-ta waxay noqotaa kalarka acd casaan bay noqotaa. waa no change weeye. marka kana waa blue weeye. base waxay noqonaysaa blue way noqonaysaa. marka waxaan ku heshiinaynaa methyl orange kadib waxaan ku heshiinaynaa phenolphalein. marka